sanadihii la soo dhaafay waxaa aad u kordhay shaqaalaha dawladda iyo saraakiisha ciidamada ee dalka ka baxaya kuwaas oo ku baxaya baasaboorka shaqaalaha ee loo yaqaano passport service-ka waxayna ka dibgalayaan qaaradda Yurub iyagoo magaalada Muqdisho ka qaadanayo fiiso dalxiis oo dalka Talyaaniga ah. Arrintan waxaan ogaanay inay fududeyso wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Dhammaan dadkaasi oo ka kala tirsanaa shaqaalaha dawladda ee rayidka ah maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha hay'adaha amniga ayaa qaadanaya baasaboorka service-ka kadibna waxay u ambabaxayeen Yurub iyagoo fiiso Talyaani ah ka qaadanaya Muqdisho. Waxaan arrintaasi lagu helayay fududeyn ay samaysay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Dadkaasi kadibna waxa ay go'aansanayeen inay Yurubta kale u sii taariibaan ama iska dhiibaan iyagoo go'aan ka gaaray inay dalka dib ugu soo laabtaan. Arrintan ayaa aad u korortay muddooyinkii la soo dhaafay waxaana la arkayaa in rag badan oo hay'adaha amniga ka mid ahaa iyo xubno kale oo ka tirsan shaqaalaha dawladda inay bilaabeen inay qaataan fiisahaasi dalxiis ee dalka Talyaaniga kadibna ay dalkii ka gooyaan ama aysan dib ugu soo laabanin. xubnaha sidaas sameeyay qaar ka mid ah waxay ka tirsan yihiin wasaaradaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, xafiiska guddoonka baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka iyo xubno ka tirsan hay'adaha amniga ee dawladda iyo qaar kale oo xafiisyada dawladda ka mid ah. waxaana sidoo kale ku jira dad ka baxay qaar madaxda u raacay safarro iyo tababaro kadibna aan dib u soo laabanin. si rasmi looma ogo in arrinta laga ganacsado oo lacag lagu bixiyo, laakiin waxa aad u kordhaya dadka ku baxaya baasaboorka service-ka kadibna Yurub u sii taariibaya markii ay Muqdisho ka qaataan fiisaha dalku galka Talyaaniga. walina ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, laakiin arrintan waxay dhibaato weyn ku tahay dalka sababtoo ah qof kasta oo dalxiis ama fiisa dalxiis helaba waxa uu sii goynayaa qaaradda kale ee Yurub, qaarkoodna wadamada kale ee Amerika ay u baxeen. lama oga sababta waqtigan 2024 oo Soomaaliya marxalad soo kabasho ay ku jirto shaqaalihii dawladda iyo mas'uuliyiintii ay u baxayaan, laakiin arrinta waxay u egtahay in qofkii dawladda u shaqeeyaba uu fursad ku raadinayo sida uu ku heli lahaa baasaboorkaas dabadeedna ugu ambabixi lahaa qaaradda Yurub ama wadamada kale isagoo jaanis u arka inuu helo oo kaliya adeegaas. hay'adaha amniga mas'uuliyiinta ka tirsan ayaa sidaas isla mid ah iyagana sameynaya, qaarkoodna fasaxyo dhaadheer ayay qaateen waxayna wareegayaan ama ay dalxiis u joogaan wadamo kale oo Afrika iyo Asia ah. waayadii dambe dalka Soomaaliya waxaa ka ambabaxaya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dalka iyo shaqaale sare oo xafiisyada dawladda ka tirsan, kuwaasina waxay iska dhiibayeen wadamada Yurub iyo Amerika. waxaa u muuqataa inay ku adkaatay nolosha Soomaaliya amaba dhammaantoodba ay nolosha dalka ay ka cararayaan sababo amni iyo mid dhaqaale intuba. waxayna fursad u arkaan Yurubta ay galayaan iyo sidoo kale Amerika iyagoo aaminsan in halkaas ay ka heli karaan nolol ka wanaagsan midda Soomaaliya. haddii dhalinyaradii ay tahriibayaan oo ay badda marayaan, saraakiisha ciidamada iyo shaqaalihii dawladda iyo kuwii maamul goboleedyada ee qaarkood wasiirro iyo xildhibaano ku jiraana ay baasaboorkii service-ka ee dalkan ku baxayaan Yurub iyo Amerika iska dhibayaan, Soomaaliya waxay arrintan ku sii ridaysaa god dheer rajadii dalkan laga qabay. waxaana dadka fursad u helaya shaqaalaha dawladda ama xafiisyada dawladda ay u muuqdaan kuwa dalkoodii ka cararaya halka qaar kalena ay banaanada ku dhibaataysan yihiin. Soomaaliya sanad iyo barkii la soo dhaafay ama ugu yaraan 2 sano ee la soo dhaafay ayaa arrintan aad u korortay, waayadii dambena waa ay jirtay ka sii hor, laakiin hadda waxay u egtahay in si xooli ah ay ku socoto oo aad u korortay dadka wadanka ka cararaya. waxaan sidoo kale arrintan ku soo aadaysaa iyadoo amniga dalka Soomaaliya uu soo hagaagay 2 sano ee la soo dhaafay gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin waxa ay furfurayeen socdaalka dhanka dibadda iyo sidoo kale fursadaha lagu helayo ku bixitaanka baasaboorka service-ka ah ee shaqaalaha dawladdu ay qaataan. weli ma jiro wax war ah oo dhinaca dawladda Soomaaliya ka soo baxay, laakiin marka ugu horeyso ay dawladdu ka hadasho arrintan waan idin wadaagi doonaa, laakiin aragtida adigu nala wadaag sidee u aragtaa in dalkii ay ka baxayaan saraakiishii ammaanka, shaqaalihii dawladda iyo xataa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada kuwaas oo iska dhiibaya Yurub iyo Amerika. muuqaalkan share garay qaybta hoose ee commentiga aragtida noogu reeb.